wuxuu ugu daran yahay marka masaajidka la soo galo iyo qofku markuu cibaadada bilaabo markaasaa ciidankiisa oo dhan u front line ka soo dhigaya wuxuu isku dayayaa siduu nabigeenu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam marka la adimo uu baxsanaya isagoo neefi xagga dambe ka socoto wuu fogaanayaa intaanu adimaada ka maqlin hadhow marka adimaadu dhamaatuu soo noqonaya aqiimku markuu yimaado haddana cararaya markuu aqiimku dhamaado soo noqonaya deedna isagoo uu xaray yar moodo ayuu safka muslimiinta ee salaada soo gelaya la tad'u lishaytaani furja markuu rasuulku leeyahay calayhi salaatu wasalaam shaytaanka boos ha u banaynina intuu boosaska soo xulusho buu nabigu calayhi salaatu wasalaam ayaa marka dambe wuxuu isku dayayaa inuu qalbigaaga kontroolo oo uu u qabto shukaanta mar allaaliya marka aad salaada gasho ayuu wuxuu u dhaadhacayaa dhiigaaga ashaytaanu yajri min ibni aadama majra dam dhiigaagu raacaya marka deedna wuxuu kugu bilaabayaa udkur kada udkur kada udkur kada sheeku kugu bilaabaya ilaa marka dambe aad salaadii waxa tukataba aad garan weydo ninba waxa la iga sheekeeyay bari jamac buu la tukanayay jamac ayuu la tukanayay imaamkii baa sahwiyeeyo ragcad buu ka tagay deedna wuu salaamo naqsadayo dadkana way wada xawilan yihiin oo iskala salaamo naqsadeen hadhowto ayuu ninkii yidhi sheekhow salaadii waxbaa dhiman sheekhow salaadii waxbaa dhiman markaasuu ku yidhi maxaad ku caddaynaysaa waxaan ku caddaynay wuxuu markaa ninkaasi iibin jiray hargaha wuxuu yidhi ragcadda hore haraggaan iibin jiray oo waafigiisiyo maxaan ku idhaahdaa kala saari jiray ragcadda labaadna waan cabbayn jiray ragcadda saddexaadna gaadhigaan saari jiray ragcadda saddexaadna ilaa iyo doonta afta afraad markaa weli anigoon doontii gaadhin ayaad salaamo naqsatay maan gaadhin doontii soo arki maysid halkuu u fadhiya markaa la aqcudanna lahum siraataka almustaqiim weli doontii baa ka maqan wuxuu ku gartay ninkaasi weligiiba salaad dadka lama tukado humaa waxay nala joogaan qalfoofkiisa qalbigiisuna inaga maqayaan Somaliland dhammaanteed subaxdii iftiintaba soo gashaa siraadka iyo internetu sida too suuqyada magaalada ganacsigaas u sumaya sixirada ascaarta iyo sarifka dhex yaala waxay saanta haystaan internet ilaa cusubgan oo marqura goyn hadduu ganacsigaagu korayo khubarada adduunyada sharar aad la gelineed waddan kale aad oo tegin kharashkaaga bixin baad internet adeegsanoo soo gashaa awood badan feebarkeedu saxan yahay ganacsigana u gaar yahay qoys lagama maarmay guriga iyo carruurta iyo madadaaladooda mar kastaba muhiime markay soo gasho helaan bay muxubbada mabsuudaan maankaaga geliyo internet ha moogaan gurigaaga soo gela wireless speed badan feebarkuna ku xidhan yahay la xidhiidh dadkaaga oo caalamka la jaanqaad mayfay awood badan dharaariya habeenkii hadduu isticmaalkaagu badan yahay daatadiisu xadid ma le mashquul iyo dhammaad ma leh mar qudhaata gu'id ma leh haddaad gaadho suuq iyo goobaha waxbarashada halka lagu caweeyaba soobaa isgaadhsiin gurigaaga baahnayn ruutir kugu xidheenoo hawadaada keento kugu tidhi wayfaygaaga furo oo isticmaal la dabadeed hotspot speed badan soo gasho waa shirkadda koowaad ee Somaliland hogaaminaysa isgaarsiinta internetka fiber optiga ka ganacsiga iyo ka guryaha iyo dhammaanba adeegyada kala duwan ee shirkadda soo ay bixiso internet awood badan oo fiberka ah wax ku baro ku daawo ku ganacso ku iibso ku iibi kuna ciyaar isticmaal mar walba iyo